shirkadda Fanuun Star oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee dhismayaasha casriga ah ayaa dhamaystirtay dhismaha dugsiga hoose dhexe ee Ilays Primary School ee magaalada Woolwich ee gobolka Cayn. dhismaha iskuulkan oo ay dhistay wasaaradda waxbarashada Puntland oo kaashanaysa hay'adda CARE ayaa waxaa fulintiisa lahaa shirkadda Fanuun Star. munaasabad xadhiga looga jariyay dugsigan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta shirkadda Fanuun Star iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hay'adda CARE iyo wasaaradda waxbarashada ee Puntland. anagu waxaan ahayn anagu ku hadlaynaa Xaaji Cali Foundation ama maartay Ali Jidaal association kiisi oo abuuray sawirtu noolaa Allah u naxariistay waxaan isku daynaa hadii la ka dhigo inaan iskuulkan iyo iskuulada lamid ah inii raadino oo aan deegaanka maartay aan wax ka qabano insha Allah taala waxaan aad iyo aad ugu mar walba ugu dadaalaa wadoogeedan waagi hore dhakhtarka maartay waxaan wax ka dhisnay waxaan ka qabanay iskuulkan hadda waa inii keenay annagu insha Allah taala maartay ujeedadeedu ugu weyn waxa weeye ama oo aaba nagala ballamay in deegaankan wixii laga qaban karo dadka turku degan inaan ka qabano annagu waxdan oo kale aan ka lahayn insha Allah taala haddana waxaan yeeljeynaa insha Allah taala kana dugsi sare ku soo darno inaan kuwa kale inay dhisno deegaanadooda insha Allah taala waxaan ka qaban karno ka qabanno annagu mar walba halkan inay tahay gurigeygii aan soo noqonaynay oo meel kasta marka soo wareegno lagu soo noqonayay marka inta maanta la joogo guriga waxba laga qaban berito hadii loo soo noqdo isagoo wax walba ay maartay waxba ka jirin waad ka garan kartaa wax laga dareemayo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo maartay aan bahda waxbarashada Puntland oo runtii gaar ahaan wasiirka waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xuseen oo aad iyo xasan oo ma aad iyo aad noolaha galay oo nala halgamay oo mashruucan insha Allah taala maartay juhdi badan ku bixiyay in la siiyo iyo hay'adda CARE iyo wasiir gudulaha Cabdullaahi Dhoob oo isaguna maartay qayb ka ahaa helitaanka mashruucan waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadka deegaanka sida maartay kartida leh ee ay uga qayb qaateen hirgelinta mashruucan hadday tahay maamul iyo hadday tahay dadweynaha marka horta waxaan wax loo dhisay waa idinka weey caruurta jiilkaas waxa ay yareen halka taagan ayaynu wax u qabanaynaa waynu doonaynaa marka waxaan u baahanahay inaan iska kaashano sidii deegaanka horumar loo gaarsiin lahaa sidii deegaanka wax loogu qaban lahaa sidii qof kasta oo deegaanka wax ku soo kordhinay loo sabarti garan lahaa waxaan kaloo aad halkan uga mahadnaqaya qurbo joogtii bixisay oo soo aruurisay meel kasta ha joogeen lacagtii lagu dhisay lagu iibiyay dhulka lagu iibiyay aad bay iyagoo maartay soo bixiyay aad bay u mahadsan yihiin wax ka dhiibtay wixii qorku keenay iyo wixii qofka u keenay miisaanka xasanaadka ay haw saaro maanta la qaawan yahay baan Ilaahay uga baryeen inta markaa ka gudbo waxa weeye reer wuxuu waynu isnaqaanaa halkan waynu qurxinay tacab kastoo la soo galiyay meel kastoo la soo maray si kastoo la soo yiri galabta waxa weeye bidhaanta ka muuqata waynu aragnaa waxa weeyaan hal ilaashado iskuulka hal ilaashado iskuulka oo waxa weeye nooc ay u tahay hadday dhalinyaro tahay hadday waayeel tahay hadday haween tahay hadday ururada bulshada tahay hal ilaashado iskuulka sida ku yimi yeesuu ku soo bilaabmay yeesuu galabta yahay aynu aragno dugsigan inoo suura geliyay aynu galabta la wareegayno dhismihiisii ilaaha saamaha iska leh waxaan kaloo aan farayaa dadka deegaanka qurbo joogta wixii aad qabateen wakaa galabta waad aragtaan wax kastoo qabataan saasaa loo muujinayaa idinkuna ina soo dadaala annaguna waxa weeye haddaanu nahay dadkii dhulka joogay waanu muujinaynaa waxqabadkii waxaan kaloo halkan uga gudbinayaa wasaaradda waxbarashada Puntland wasiir dowlaha سبحانه وتعالى نسي نعمة الإسلام والإيمان أنت كبعدي وحارنتي أنا ربا إن المهك والأمة العليا تلاقي كان بيشوا قصب بالوضي ما أنت عارف سان بيشوا مرة بيشوا قصب بالوضي وقرانا وما مراد عبد الله محمود علمي هي مع السلمان كيسان برت قصب بالوضي حضين أصور ورايقين حضين دلالة الكوب الحين حضين الجد هوست الكوب بالعابين ما أنت مرح لمكاني runtii marka ugu horeysa marka la wada mahadcelinayo aad macalin mahadcelinayaa waxaan rabaa marka labaad inaan mahadceliyo Jidaal Foundation iyo shirkadda ismaha Fanuun oo isxambaarsan iyada qudhadeeda waxa weeye waa tacabkii Cali Jidaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka u naxariisto Cali Jidaal waxaan filayaa deegaanka iyo dadku dhammaan wada garanayaan
waxa uu ku dadaali jiray oo ku caanbaxay waxyaalaha khayriga aanu ka shaqeeyo waxaan xusuustaa runtii masaajidda waxaan ogahay markhaati ka in masaajid uusan ku bixin intii aan ka oga inay jiraan iyo golaha waxbarashada ee khayriga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u baryaa jannata firdawsi inuu ku waraabiyo waa tacabkii uu ka tegey waad arkays maanta rag badan oo noociisa ahaa ama ka waaweynaa ka horreeyay ama kawo ka dambeeyey awlaaddii ay ku tabceen waynu garanaa maanta meeshay joogaan waynu garanaa maanta meesha ay joogaan hadduuse dadaalka iyo tacabka uusan ku bixin oo uusan waxbarin uusan waa u mahadnaqaynaa marka xiga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadkii ka soo shaqeeyey ee ku soo tabcay hadday tahay maamulayaasha iskuulka maamulaha iyo ku-xigeenka iyo macallimiinta haddii ay tahay qurba joogtii dhulka iyo qulquljoogtaba markii la isku daro kuwii dhulka iibiyey waxaanu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanuna leenahay khayr ilaahay haydinka siiyo ilaahay janno haydinku bedelo meeshaad ka soo saarteen qolada waa u mahadnaq waxaan kaloo u mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada Puntland baanu u mahadnaqaynaa Cabdilaahi Maxamed Xasan iyo wasiir dawlaha waxbarashada waanu u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda care mashruuca bixisay waxaan u mahadnaqaynaa wasiirkeena nololeed buu ka turjumayaa waa guul ballaaran oo la gaaray waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo cid kasta oo dadaalkan iyo natiijooyinkan aynu maanta joogno ku lahayd ama qayb ka ahayd oo ay ugu horeeyaan maamulaha iyo macallimiinta iyo dhammaan howlwadeennada iskoolka oo muddo dheer soo hayay shaqo adag u soo dhabar adeygay isla maantana ayna tusay natiijaday muddada badan u soo dadaalayeen waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waqtiga ayaa ina xusi doona taariikhda ayaa ina qoraysa intaa iyo in ka badan oo daayara oo dhalinyaro ah oo mustaqbalkooda in loo tiiriyo u baahnaa haddaad ka qayb qaadateen oo dhisteen ilaahay baa miisaanka xasanaadka inuu ku dari doona waxyaabaha leedahay inaad ka heli doontaan sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ugana mahadnaqo ugana duceeyo hay'adda Al-Jidaal Foundation iyo Faynuun oo iskaashanaya waa natiijadii ama waa tacabkii iyo dadaalkii awoowe Al-Jidaal ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay uga dhigo shaqo kasta oo uu qabtay guri ka mid ah guryaha khayr kale ee jannada inta uu ka tegay caruurtiisa ah ee dadaalkaas sii wadana dadaalka dheer ay galeen waa uga mahadnaqaynaa iyagana ilaahay idinkana abaalkiina waa gudi doonaa dadkanina waa inay og yihiin intaa kadib waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhalinyarada maanta halkan fadhida ee iskoolka dhigata ee heshay agabkii waxbarasho oo ah qayb lafdhabarka waxbarashada haddaan lahayn wax waliba aysan fiicnayn dhammaantiin waxaan leeyahay hambaliyo ood guulaysateen guul baa layni soo gaarsiiyey meelaad ku nashaadi kartaan baa layni sameeyey waxaan rabaa hal dardaarana inaan siiyo deegaanka iyo inta ka soo jeeda qurba joogtiisa iyo guda joogtiisaba marka wax la fuliyo sidii hore loo sheegay waxay rabaan sustainability in loo sameeyo inay sii jiraan iskale ثانيا anigoo ku hadlaya codkayga iyo codka degmada Wulurba waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa barnaamijkan ama mashruucan qiimaha badan ee iskuulka dhismihiisa ayaa waxaan uga mahadnaqayaa cid kasta oo wax ka geysatay oo ay ugu horeeyaan dadkii dhulkan iibiyey oo ah dadka qurba joogta iyo dad qolka jooga oo iyaguba maaragtay qaybtooda ka qaatay cid kasta oo waxeeda la baxday in maaragtay ilaawo maaha ama qurbaha joogto ama dibad ama qolka joogto gudaha joogtay cid kasta oo $1 ku darsatay oo dhulkan la baxday taasoo aan oran karo runtii haddii aan dhulka la helin barnaamijka dhismuhu ma uusan suura galeen waayo sababtu wax keenso aan wax kugu darayso maaragtay Soomaalidu tiraahdaa marka waxa weeye dhulka la helay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa mar labaad dadkii hawshan qabtay oo ay ugu horeyso wasiirka iyo wasiir dawlaha
iyo maamulka puntland dowladda puntland oo wasaaradda waxbarashada ka socda oo hawshan maantay raadiyey iyo kimbergi yani hay-addii keer iyo haddii alla ka dhigayo kimberigii faruq oo isaguna maantay dhismaha suurtageliyey aad iyo aad baan ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celinayaa qurba joogta iyo guda joogta iibisay bagcadan aynu maanta taagannahay kana bixisay lacag $15,000 waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro waad aragtaan meeshii aad iibiseen maanta dhismaha iyo quruxda ka muuqata ardaydii oo wax ku baranaysa oo dafcaddii koowaad ay ka qalanjabisay waxaan leenahay qurba joogta iyo guda joogta cid kastoo ka soo jeeda deegaankan haddii la iskaashado waxa la isu geeyo waxbay dhalaan madhadhal bay yeeshaan waxaan leenahay waynu aragnaa insha allah horey aan u sii soconno waxa weeye waa waxqabad aad iyo aad muhiim u ah waxaan rabaa inaan bogaadin iyo mahadcelin u diro wasaaradda waxbarashada ee puntland wasiir cabdilaahi maxamed xasan iyo wasiiru dowlaha iyo waxa weeye hay-adda keer iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in waxa weeye mashruucan laga dhiso Woodward oo iskoolka loo dhiso waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala baa idinka abaalmarinaya waad aragtaan wixii aad bixiseen maanta meesha ay marayaan ardaydii oo dhiganaysa waxaanuna haddaanu nahay deegaanka Woodward odayaasha waxgaradka culimaadudiinka haweenka iyo carruurta cid kasta waanu idiin ducaynaynaa waxaanuna leenahay yuusan noqonin kii koowaad intiisa kalena idinka idiin dhiman tahay waa idinka sugaynaa insha allah anana wixii aan ku dari karno waa ku daraynaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waxa weeye shirkaddan inoo fulisay mashruucan waxa weeye Jidal Foundation waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idinkan allah idiin saaro runtii mar walba waxaad qabataan wax muuqda oo deegaanka ka muuqda oo in badan aad waxa weeye hadduu yahay dhakhtarka weyn iyo hadduu yahay iskoolkan insha allah sida ballanqaadka kalena aad u fuliseen aad tirahdeen waa wax ka soo wanaag oo ka shaqaynaynaa way arki doona waa iskuul runtii taariikhdiisu ay si weyn ay ugu jirto historyga meel maran ka bilaabmay galabta maraya meesha waxaan u mahad celinaynaa raba halkan inaan uga dhawaaqo oo uga dira fariin cid kastoo gacan ka geysatay ay ugu horeeyaan qurba joogta iyo guda joogta deegaanka Woodward oo runtii waxa weeye iibiyay dhulkan kuna bixiyay qarash dhan $15,000 waxaan sidoo kale iira rabaa inaan fariin u diro u mahad celina dugsigan hoose dhexe Elays oo runtii waxa weeye jarjarada soo maray dhismihiisa iyo mashruuciisa hay-adda keer iyo wasaaradda waxbarashada puntland oo iska kaashaday oo dhismaha sida u quruxda badan halka hirgeliyay deegaankan oo runtii lagu xasuusan karo taariikhda wasiirka waxbarashada puntland cabdilaahi maxamed xasan oo runtii waxa uu qabtay jiilkaas 7 sano fadhiyay gawaanka ay taariikhda u geli doonto dadkan historyga u baahan waxa weeye ciddii wax u qabatay inay taariikhda xusto maamul iyo hay-ad iyo runtii samafalayaal qof kasta oo wax gashaday waxaan u cadaynaynaa halkan ka sheegaynaa inaan taariikhda qalin doonin wasaaradda waxbarashada puntland waxaan ugu mahad celinaynaa waxaan u diraynaa runtii baaqan iyo mahad celinta wixii ka dhiman inoo dhammaystiraan dugsiga quruxda badan ay sameeyeen sidoo kale wasiirka waxbarashada ee cabdilaahi maxamed xasan ee puntland iyo wasiiru dowlaha cabdilaahi jaamac bobo waxaan leenahay dhammaantiin iyo intii gacan ka geysatayba aad baan ugu mahadsantiin waxaan sidoo kale aan yaro marba la hilmaami karaynin shirkaddii Faynuun Company Construction oo mashruucan waqti dheer iyo juhdi dheer baadidoon soo helin keenis dhisid tafatir maqaamkan uu galabta marayo shirkadaasoo soo gaadhsiisay waxaan leenahay Faynuun Company Construction iyada oo runtii waxa weeye waxqabadka ay sameeyeen Jidal Foundation oo aan u kala harin iyo shirkaduba raadinta iyo keenista iyo isku dubaridka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan halkan rabaa inaan ka ilaaliyo oo sheego oo aan rabaa bulshada deegaanka Woodward inaan la wadaagno baadidoonkii dugsigan iyo soo helistaankiisii iyo isku dubarid jarjarada oo soo maray iyo waqtigii uu soo socdayba iskuulkan qadiifado ku bilaabmay waxaanu ku bilownay magac la yiraahdo Elays oo saddex Woodward buu ku bilaabmay geed hoostiiba soo ku soo maray in aanu maanta dadka samafalayaasha ee waxa weeye waxqabadka deegaanka ka ah ee maqaamka kula deegaankeen
ee odayaasheenii ah inaan ugu magac daro xilligaanu dhaqaalaha ururinaynay iskuulka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna waxaan halka rabaa inaan ka ilaaliyo oo sheego oo aan rabaa bulshada deegaanka ugu inaan la wadaagno baadidoonkii dugsigan iyo soo horistaankiisii iyo isku dubarintaajada oo soo maray iyo waqtigii uu soo socdayba iskuulkan qadiifado ku bilaabmay waxaanu ku bilownay magac la yiraahdo ilays oo saddex wuu ku bilaabmay geed hoostiiba soo ku soo maray in aanu maanta dadka samafalayaasha ee waxa weeye wax qabadka deegaanka ka ah ee maqaamka kula deegaankeen ee odayaasheenii ah inaan ugu magac daro xilligaanu dhaqaalaha ururinaynay iskuulka ee dibadda hawsha ka wadnay waxa aan naloo weydiiyey magaca ilays oo runtii waxa weeye dad badan ay fahmi waayeen waxaanu haddaba u sheegaynaa cid kastoo magaca garan lahayd inaanu maaragtay ku casumi doono astaan uga dhigi doono sida dugsiga sare u yahay xirsi dhabarlow secondary school graduation secondary school